بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد waxaan ku soo jirnay suuraة الmaaئدة waxaa noo dambeysay lowlaa ينهاهم الربانيuuna والأحباaر عan qowلiهiم الإثم وأkلiهiم السحت لبئsa ma kanuu يصنacuun in culammadoodii la dhaleeceeyey inay ka reebi waayeen hadalka beenta ay ku hadlayaan iyo xaaraanta ay cunayaan sidaasaa lagu dhaleeceeyey meesha lagu ammaanay dadka muslimiinta ah culammadooda kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billah khayriyada ummadda muslimkaa sidaasay ku mutaysatay alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar inuu maarata dhexdooda qaa'imka ahaa o istaagnaay ayaguna maaragtay waa diideen dadkoodii caamadahay wax la cuneen wixii bay la qasteen wixii ay ku jireen oo xaaraanta ahay la wateen sidaasaa lagu lacnaday sida noo imaan doonta duruusta dambe lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calىa lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bima casaw wa kanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu sidaasaa lagu sheegay weli waxaan ku jirnay ahlu kitaabka gaar ahaan yahuudda in maaragtay hadal xumo qowlkoodii aan soo sheegnay can qowlihim اlإثma dembigaas ay ku hadleen yaa tusaalena laga siinay wa qaalat اlyahuudu yahuud waxay yidhaahdeen yadullaahi ilaahay gacantiisa maqluulatun waa xihan tahay waa kinaaya can اlbukli markii la yidhi wax bixiya oo wax sadaqaysta ayay maaragtay yidhaahdeen yadullaahi maqluula horena u soo marnay inay yidhaahdeen ina allaha faqiirun wa naxnu agniyaa sanaktubu maa qaaluu wa qatlahum اlanbiyaa hadalkaas ay yidhaahdeen waa loo qorayaa lama cafinayo iyo ambiyada ay xaqdaro ku dilayeen hadal ka weyn marka ma leh ilaahay inay aflagaadeeyaan oo yidhaahdeen waa bukli asagoo abuuray oo arsaaqaya oo nicam fara badan siiyey oo aan soo marnay yahuudda gaar ahaan sida loogu barwaaqeeyey oo waktigii nebiyullaahi muuse calayhi salaam wixii la siiyey waa soo marray suurat اlbaqara iyo meelo badan wa qaalat ilyahuudu waxay yidhaahdeen yadullaahi ilaahay gacantiisa maqluulatun waa mid xihan waa bakiil bay leeya wax ma bixiyo hadalkaas marka ay ilaahay ku tilmaameen aayado kalena ay yidhaahdeen annagu aqniyaa nahay asaguna waa faqiir hadalkaas marka waa hadal aan aad maaragtay looga fiirsan oo meel ka dhac ilaahay ku ah oo kufri ah sariix waa la habaaro marka waxaa leeya gullat aydiihim gacmahooda allaha xiro ayagaa gacmahoodu xihan yihiin oo aan waxba bixinayn yahuud waxba kama soo dhacaan mashruuc khayrana wax kuma bixiyaan ilaa hadda waa macruuf waxa wax bixiya waa kiristanka kale oo nasaarada sheegtay kuwaasaa maaragtay laaji-iinta iyo maaragtay dadka soo galootiga iyo yahuud la isku dhiibaya maaragta israa'iil ma jirto ayagaa shirgima qaliila marka ayagu isku gurmanayaan dhexdooda laakiin dad kale ama gaalaha kale ha noqdeen ama muslim iska badaa wax ay wax ku bixinayaan ma jirto mashruuc khayr ah wax kuma bixiyaan laakiin waxay wax ku bixiyaan sharta iyo fasaadka shareemooyinka arag waxaa aragtaa filimaanta arag waxa holweyn iyo balaayada dhan ayagaa maaragta sameeya lacagaha iyo ribada iyo maaragta saraafka waxaas ayagaa ka shaqeeya ayaga hawshooda waa adduunyo maadiyimu wax khayra kama shaqeeyaan yadullaahi maqluula markay yidhahdeen gullat aydiihim ale ayaga gacmahooda allaha xiro walucinuu waana la nacladay naxariista ilaah baa laga fogeeyey
bimaa qaaluu hadalkaas ilaahay ku yidhaahdeen yadullaahi maqluula hadalkaas lama dayn sanaktubu maa qaaluu baa ilaahay yidhi walucinuu bimaa qaaluu hadalkaas ay yidhaahdeen waa lagu lacnaday oo naxariistii allah looga fogeeyey bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa waa jawaab hadalkay yidhaahdeen looga jawaabayo bal yadaahu alla labadiisa gacmood mabsuudataani waa kuwa fidsan oo waxbixinta deeqsinimada ilaahay maalin iyo habeen iyo saacad kasta dada wax siinay roob iyo arsaaq iyo barwaaqo iyo awlaad iyo caafimaad iyo arsaaqu bixinay bal yadaahu mabsuudataan gullad meeshii ahayd mabsuudataan labadiisa gacmood waa fidsan yihiin ilaahay marka yadda loo sheegay ama mufrad ha noqoto ama laba ha noqoto adiga taada ha ku qiyaasi laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir gacantaadan adigu ha ku soo miaalin yacni waa yad ilaahay uu sheegtay oo asaga laa'iq u ah jalaalkiisa iyo cadamadiisa oo annagu aan sugayno kayfiyadeeda ma naqaano siday tahay ma naqaano yunfiqu alla waa bixiyaa kayfa yashaau sida uu doono ayuu wax ku bixiyaa oo khasaa-inta alleh iyo maaragtay nicamta uu bixinayo xilli kasta waxbuu bixinayaa wa aataakum min kulli maa sa'altumuuhu wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar bini aadamku marka waa gardarro badan yahay waana kufri badan yahay ilaahay baa aflagaadeey leeyihiin yadullaahi maqluula axaadiistan ilaahay wuxuu noogu sheegay nebigu alayh isalatu salaam ina yamiin allahi mal-a laa yagiiduhaa nafaqa ilaahay midigtiisu waa buuxdaa wax nuqsaaminayana ma jiraan nafaqa uu bixiyey saxaau leyli waannahaar hameen iyo maalin buu ilaahay wax shubayaa oo wax bixinayaa ara'aytum maa anfaqa mundu khalaqa asamaawaati waalarda fainahu lam yagid maa fii yamiinih bal ka warrama wixii ilaahay uu bixiyey samaawaadka iyo dhoolka markii la abuuray wixii gacantiisa ku jira ma nuqsaamin waana socdaan waxbuu bixinaya wala yasiidanna waa u kordhinayaa kaiiran wax badan minhum kuwaan ka mida yahuudda maa unzila ilayka wixii lagugu soo dejiyey nebi maxamedow min rabbika xagga rabbi lagaaga soo dejiyey wuxuu u siyaadinayaa duqyaanan kibir iyo qoob wa kufran iyo gaalnimo ilaahay waxa uu ku siiyey oo nicam ah cadowgaaga yahuudda ah waxa uu alla ugu siyaadinayaa kufri iyo kibir bay kasii siyaadsanayaan xaq diidnimo qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaaءun marka qur-aanka la tilmaamayay wاladiina laa yu'minuuna fii aadaanihim waqrun wa huwa calayhim caman waa ka indhala yihiin culaysaana saaran wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxma lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara ayaga khasaar iyo baaba buu u kordhinayaa walaa yaziidanna waa u kordhinayaa kaiiran wax badan minhum kuwaas yahuudda ka mida maa unzila ilayka min rabbika xagga rabbi wixii lagaaga soo dejiyey oo maaragtay diin ah wuxuu u siyaadinayaa duqyaanan wa kufran wixii lagu soo dejiyey qur-aankii iyo risaaladaada waa ku xasdayaan waxay leeyihiin ambiyada annana laga soo saari jiray sidaa nebi maxamed oo caraba looga soo saaray am lahum nasiibun min almulki faidan laa yu'tuuna annaasa naqiiran waa soo marnay wax yar xataa ma bixinayaan oo timirta dawaalkeeda ah am yaxsuduuna الnaasa calىa maa aataahum اllahu min fadlihi faqad aataynaa aala ibraahima alkitaaba wاlxikmata wa aataynaahum mulkan cadiima ilaahay saas uu siiyey mulkigaas weyn risaalada iyo maaragtay waxyiga loo waxyoonayo waxaas baa waxay ayaga u kordhinayaan kibir iyo kufri mu'miniintana wuxuu u siyaadinayaa rumayn iyo camal saalixa iyo iimaankooda ku ziyaada
وألقينا وحن كردني بينهم دحدودا العداوة عليتا والبغضاء إيعرا إلى يوم القيامة إلى قيامة لغجارة يهود أيضا دحدودا اسم جعل كوا كلا كريستا كان مجعل ونصارى marka dhaxdooda waxa ka jirta cadaawo aan maartay soo koobi karin kooxda kale ay maartay lacmadaysa isma rabaan oo soo marnay وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وألقينا بينهم dhaxdooda waxaan ku ridnay العداوة والبغضاء عداوة وعليتا أي مارت علي سينيان والبغضاء عراء النعيب إلى يوم القيامة إلى لغار قيامة قلوبتهم ما كل سنة أقول لك ساس أمران تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وكل تقسمتها عداوة أيضا كده حيسة كوحوه دائما وحقكم كل مكران مربع ديدان حقي أو كبانية كلما أوقدوا مركز الشيران أما هريان نارا دب للحرب دقال أطفأها الله إلهي وبختينا يا ودمينا يا مركز مكيدة إيو دقار إيو شرقال أي اسكو ديان أسباب أي أدق ما تكبو مكرنا يان إلهي وبختينا يا دبكاس أي شدان كلما أوقدوا مركز الشيران نارا دب للحرب يعني دجال درت مركز دب الشيران أو معناه على جوضة حرب على جوضة مركز ربان إن الدجال كل جران نار على عبر دب الشيران الدجال كل جدي كلما أوقدوا نارا للحرب دب مركز الشيران دجالك أطفأها الله إلهي والدمينية وحاس أي كوو تلقلان إنه كوو مكريان أما كوو دلان إلهي والبربرين يباد الكودي كيد كودي أي كو علينا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي كدق يا مكر كودي حماي ويسعون وحي أسعنيان في الأرض لوكا فسادا هلين لوكي بيخربيان وضبيع الدودة وحاكم ذا الإفساد في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والله لا يحب الفساد سورة البقرة شمر دائما أيوة حكا شقيا فسادك إيو مارت اسكدرك إيو النعايبك وحاس شديا قلوا مارت كم مسماريا قلوا كل جليا وحاس كشقيا واحد أدونك قصة فسادك كورة أيها أبوبها ويسعون في الأرض فسادا لو كان مارت وحي وسعونيان إن يخربان فساديان والله ألا لا يحب مجعل المفسدين ضدك وخربه أو وحفسادي إلهي مجعل قفك صفدي الساس أي تعالي من هدوسا جعلين مفسد مصلح إلهي وجعلين إن الله يحب المقصدين مصلحين ولا جعلين إصلاح وكشقينا وناقو dadkii buu isku keenaya dadkii baa maartay nabad iyo kuwada noolaanaya laakiin daa'iman dagaal iyo xarbi iyo fitno wax ilaahay u jecel yahay ma ahan walaw anna ahlal kitaabi aamanuu wattaqaw lakaffarna canhum sayi'aatihim wala adkhalnaahum jannaati naciim walaw anna ahlal kitaab kuwa kitaabka la siiyey haddii aamanuu إلهي إيا الرسول شيء الرمي لهايان واتقوا أي إلهي كعب سلهايان أو محارمت إيا دنبك إسك إلهي لهايان وإلا أمرنا أي لا إيمان لهايان لكفرنا عنهم وحانك أسطر لهايان وحانك بابي إلهيان سيئاتهم حمان يالكودي دنوبتي أي قلان با كفارة قد وقدق لهاي صلى الله وشرع صلى الله عليه oo ilaahay ay rumeeyaan taqwadii ay laazimaan wala adkhalnaahum waxaan gelin lahayn jannaati naciimi nicmada jannadeeda
baa la geli laha low ay saas yeeli lahayen laakiin ma aysan yeelin walow ana ahla اlkitaabi dadka ahlu kitaabka haddii aamanuu ilaahay iyo rusushiisa ay rumayn lahaayeen iyo kutubtiisii iyo wax alla wixii la yihi rumaaya waataqow haddana ay ilaahay ka cabso lahaayeen lakafarnaa canhum sayi'aatihim xumaantoodii waan ka dhaafi lahayn oo ka asturi lahayn wala adkhalnaahum jannaati الnaciim markii dembigooda la dhaafo jannadana waa la geli lahay wixii ay ka digtoonaayeen oo dunuubtii iyo qofka macaasida dhibaysay ama laguu qabtaa waa laga day lahay waa laga asturi lahay haddana janna la geli lahay maqsuudkii uu rabay qofka muslimka ah walow annahum aqaamuu tawraata kitaabkoodii towraad ahay hadday toosi lahaayeen oo ku dhaqmi lahaayeen iqaamadu waxaa toosintu macnaheedu waa inay ku dhaqmaan walow annahum aqaamuu tawraata towraad hadday toosi lahaayeen walinjiila kuwa ahlu towraadaw oo yahuudda ree injiilna waa nasaaradii labadooda ahlu kitaabka ahayo walow ana ahla lkitaabi labadoodii baa ku wada jira ayagaa lagu wada jiraa marka walow annahum ahlu kitaabkii aqaamuu tawraata walinjiil labadaa kitaaba loo soo dejiyey hadday ku dhaqmi lahaayeen wamaa unzila ilayhim min rabbihim iyo xagga rabbi wixii looga soo dejiyey kutubtii ka maaratay ayaga ka horeysay oo suxuf ibraahim wa muusa inay rumeeyana laga rabo sida annagana laga rabo nebigii ay soo gaareen wixii lagu soo dejiyey inay rumeeyaana la rabaa haddii kale diinkoodii waa baaba-e taxriif u ahaa oo markii nebi maxamed uu yimid koodii meeshuu ka baxay diinka ilaahay raalli uu ka yahay oo hadda maarata la aqbalayo waa midka muslimka koodi ma soconayo waa dhacay valid expire kana socdo shaqaynaya koodi inay rumeeyaan kaliya laga rabaa sida annagana laga rabo inaan u rumayno kutubta ilaahay soo dejiyo dhan dhammaantood rususha ilaahay dhan inaan rumayno ayadana intoo kale laga rabo nebi ciise oo ka dambeeyey yuhuudda inay rumeeyaana laga rabay nasaarana waxaa laga rabay nebigeennii inay rumeeyaan iyo ambiyadii ka horreysa walow annahum aqaamuu tawraata walinjiila hadday toosi lahaayeen towraad iyo injiil wamaa unzila ilayhim wixii loo soo dejiyey min rabbihim oo kitaabkeenna qur-aanka uu ka mid yahay iyo kutubtii horeba waa soo wada geli karaan labada tafsiir la akalu hadday saas yeeli lahaayeen jawaabtii aawey lowda la akaluu waxay cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda sare ayay ka cuni lahaayeen wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodana waa ka cuni lahaayeen min fawqihim marka xagga sare samada laga soo waraabi lahaa roob ilaa waa ka sarraysa samada taxti arjulihimna waa dhulkii ay ku taagnaayeen dhulkana waa loo barwaaqay lahay nicam iyo waxbaa looga soo saari lahay hadday laakiin ay ku dhaqmi lahaayeen laakiin ma aysan yeelin wax alla wixii maaragtay kutuba ka horeeyana waa beeniyeen kuwii ka dambeeyey waa beeniyeen ambiyadii sidoo kale waa beeniyeen bal yacnii aflagaaday ku sameeyeen nebiy llaahi ciise oo ka dambeeyey waxay yidhahdeen waa ibnu zina bay ku tilmaameen waa kuwii xataa inay dilaan isku dayay oo ayagu sheegtaba inay salbiyeen laakiin ilaahay uu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum ayagu laakin waa qirteen inay dileen ay sheegteen ayagu laakiin ma dilina bal rafacahu llaahu ilaahay baa ka dulqaaday marka hadday ku camal fali lahaayeen kutubta markaas ayagu ay haysteen towraad iyo injiil sida ay maaragtay ugu soo degtay ayagoon taxriif iyo takyiir iyo tabdiil midna lagu samayn xaqaas marka ay ku dhaqmeen wuxuu keeni lahay oo gaarsii lahay inay ku camal falaan kutubtoodii wixii ka dambeeyana ay rumeeyaan oo nebiy llaahi moxamed uu ka mid yahay laakiin ma aysan yeelin la akaluu min fawqihim hadday kutubtooda ku dhaqmi lahaayeen kor ayaa maaragtay laga
ay wax ka cuni lahaayeen xagga sara wax looga soo deji lahay cirka wa min taxti arjulihim iyo lugahooda hoostooda dhulkiina daaq baa looga soo bixi lahay iyo barwaaqo iyo miro oo samada ilaahay si maarata xadaaf ah baa biyo loogu waraabi laha waqultu اstakfiruu rabbakum inahu kana gafaara waa kii nabiy llaahi nuux yihi yursil الsamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara waxaas dhana loo burqi lahaay sida ayadaa noo imaan doona suuraة اlacraaf walow ana ahla اlqurىa aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min الsamaaءi wاlardi aayaddaas si fiican ufasiraysa laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim waxay leedaha lafataxnaa calayhim barakaati min الsamaaءi wاlard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun waa beeniyeen marka waa la qabtay wixii ay kasbadeen oo dunuubaa lagu qabtay dahara alfasaadu fi اlbari wاlbaxri bima kasabat aydi الnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu wixii ay sameeyeen lagu qabanaya lacallahum yarjicuun marka waxaan baa la sii lahay oo waa loo barwaaqay lahay aayadihii horena waxaan sheegnay in jannana la geli lahay dembigoodna laga dhaafi lahay laakiin intaba waxaa isku fuuqsatay walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun waa diideen xaqi inay aqbalaan yahuud warka waa yahuud isbedel bale horaa usoo barateen qur-aankana maaragtay si fiican ayuu nooga dharjiyey qisaskooda ambiyadooda ay kula dhaqmeen laakiin dhammaantood sidaas bay wada yihiin minhum ummatun muqtasidatun wa kaiiru minhum saa'a maa yacmaluun minhum waxaa ka mid a ahlu kitaabka ummatun muqtasida ummad dhexdhexaysatay oo wixii la faray qaatay iimaankii laga helay wa kaiiru minhum laakiin in badanoo ka mida saa'a waxaa xumaaday maa yacmaluun wax ay camal faleen oo sameeyeen intooda badan marka walaakin akarakum faasiquuna xalay gabagabadii noo ahayd intooda badan faasiqiinay ahayd laakiin dad yar baa ka islaamay ama kitaabkoodii ku dhaqmay wa min qowmi muusa ummat yahduuna biاlxaqi wa bihi yacdiluun ummad baa ka mid ahayd marka dad aan badnayn waa dadkii atbaacu ciisana sidoo kale faatayna aladiina aamanuu minhum ajrahum wa kaiiru minhum faasiquun ayagana sidaasaa lagu yihi suuraة اlxadiid ummaddan marka muxamediyada laakiin 3 qaybood baa laga dhigay meesha ahlu kitaabka laba ay yihiin muqtasida iyo kaiiru minhum saa'a maa yacmaluun oo faasiqiina kuwaan uma awrafna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqu biاlkhayraat ayaga muqtasidaa laga helay laakiin ummadda muxamediyada saabiqun biاlkhayraat iyo muqtasid iyo ظaalimu linafsihi intaba 3daas baa ummaddana laga keenay muxamediyada laakiin dhammaantoodba waa dad fiican oo ummad muxamedka janna wada gelayaan xataa daalimkooda markii laga soo jaro wixii uu sameeyey fi اlakhiir waa jannada minhum ummat muqtasidat waxaa ka mida ahlu kitaabka ummad dhexdhexaysatay wa kaiiru minhum in badanoo ka mida saa'a waxaa xumaaday maa yacmaluun camalka ay sameeyeen oo beeninta iyo kufriga wa miman khalaqnaa ummat yahduuna biاlxaqi wa bihi yacdiluun soo ma jirin suuraة اlacraaf ayadana yaa ayuha الrasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu wallahu yacsimuka min الnaas waa aayaddii labaadaan sheegnay yaa ayuha الrasuul qur-aanka ku jirta oo darsi hameen dhawood aan soo marnay yaa ayuha الrasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi اlkufri
iyo yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila labadaba suurat lmaa-ida ayay ku jirtaa nebiga marka risaalada labadaas meelood baa qur-aanka lagu sheegay inta kale yaa ayuha nabiyu baa u badan ama yaa ayuha almuzamilu yaa ayuha almudahiru laakiin risaalada labada meelood baa lagu sheegay marka ilaahay wuxuu rasuulkiisa muxameda kula hadlay bismi risaala magaca rasuulnimada wuxuuna amray inuu gaarsiiyo wixii lagu soo dejiyey xagga rabbi looga soo dejiyey oo waxyi ah inuu gaarsiiyo dadkii loo soo diray oo carab iyo cajam lahaay ila risaalada nebiga caamay ahayd ambiyadii kale dhan waa ka duwanaay ambiyada hore yani qoom gaara loo soo diray wailaa hamuud akhaahum saalixan wailaa caadin akhaahum huudan laakiin nabiga alayh الsalatu salaam wabuciftu ilى الnaasi kaafa ama caama wama arsalnaaka ilaa kaafata lلnaas dadkao dhan aloo soo diray jini iyo insa hataa waa ku jiraan carab iyo cajam ma kala soocna yaa ayuha rasuulu rasuulkaanow balliq gaarsii maa unzila ilayka min rabbika xagga rabbi wixii lagaaga soo dejiyey oo waxyi ah dadkii gaarsii wain lam tafcal haddaadan samayn oo risaaladii aadan dadka gaarsiin famaa ballaqta risaalatahu ilaahay risaaladiisii ma gaarsiin dadka mana gudan waajibkii lagu saaray waa hadday dhacdo laakiin ma dhicin oo nabiga alayh الsalatu salaam ummaddiisa uu markhaati uga dhigay xajat اlwadaac inuu risaaladii dadka gaarsiiyey ammaanadii uu gutay maxfalkii ugu weynaay oo xajat اlwadaac khudbadiisii ayuu nebigu ku sheegay oo yidhi ayuha الnaas inakum mas-uuluuna canii aniga waa laykiin weydii doonaa famaa antum qaa'iluun maxaad dhihi doontiin hadii la yidhaha nebi maxamed risaalada ma idin soo gaarsiiyey waa dadkii la joogay nabiga alay الsalatu salaam markaasay yidhaahdeen qaaluu nashhadu anaka qad ballaqta wa addayta wa nasaxta waxaa markhaati ka noqonaynaa inaad gaarsiisay risaaladii oo aada gudatay waajibkaagii oo dadka u naseexaysay fajacala yarfacu isbicayhi ilى الsamaa wa yuqalibuhaa ilayhim wuxuu nabigu bilaabo marka inuu gacan fartiisa samada kor u qaadayo ayagiina saas ku leeyahay allahuma ashhad allahuma ashhad allahuma ashhad saas ku leeyahay allahuma hal ballaqtu ilaahu waa gaarsiiyey risaalada aala soo dirtay alaa falyubaliq shaahidu اlgaa'iba wuxuuna nabigu ku yihi kuwiinaan hadda jooga oo shaahidka ha gaarsiiyeen dadka imaan doona annaga wax nagu soo gaaray diinku qoladii naga horeysay kuwii ka horeeyey ilaa laga gaaro nebiga alay الsalatu salaam qolada marka qoladii ay ka dambeysay bay ku xawilaysay oo ay gaarsiinaysay diinka haddii kale waa baabi'i lahaa diinka ilaa nebi moxamed alayh الsalatu salaam qolada qolay usoo dhiibaysay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika xagga rabbi wixii lagaaga soo dejiyo dadka gaarsii caaisha radi allahu canha waxay tihi low kaana muxamadu salى اllahu alayh ali wasalama kaatiman min alqur'aani shay-an nebi moxamed shay qur-aanka ka mida hadduu qari lahaay lakatama hadihi اlaaya aayaddan uu qari lahaay aayaddaana maxay tahay watukfii fii nafsika ma allaahu mubdiihi watakhsha الnaasa wallahu xaqu an takhshaa waa zayd ibnu xaariثa oo nebiga mawlihiisi ahaay oo xaaskiisii furay zaydna awal waxaa ogeydeen nebiga inuu ku abtirsan jiray tabanig waxa la dhihi jiray carabta oo zayd ibnu muxamed ayaa la dhihi jiray laakiin markii aayaddii soo degtay udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaalkooda ugu yeera huwa aqsadu cinda allah ilahay agtiisa sidaasaa cadaalad iyo garsoor ah qofkii dhala qofka in loogu yeero ee aan qof kale loogu yeerin waa joojiye nebigu xukunkaas jaahiliga ah oo wiil aadan dhalin aad tiraa waa wiilkaygii
xaaskayga ma guursan karo waa wiilkayga oo kale saasay jirtay waa la joojiyey nebigu wuxuu ku bilaabay marka haweenkii uu qabou furay zaynaba binti jaxsh oo nebiga maaragtay eedadiisa ay dhashay markii uu furay baa ilaahay amray inuu guursado si xukunkan loogu baabi'iyaba wiilka aan loo dhihin wiilkii nebigu uu sheegtay naagtii uu furay ma guursan kara saan loo dhihin ayadii uu guursadaba zaynab marka hadduu wax qari lahaa ay tiri caaisha arrintaas nebigu qari lahaa laakiin waxba ma qarin waxyiga oo sheegay wain lam tafcal haddaadan samayn sidaa lagu amray famaa ballaqta risaalatahu ilaahay risaaladiisii ma gaarsiin haddii wixii lagu faray aadan samayn ma gaarsiin risaaladii mana gudan wixii ka dhalanaya marka hadduu gudan waayo yacni waxa ku xiga waxay noqonaysaa in wax laga qabto laakiin ma dhicin waxaa leeyahay yani waa hadday dhici lahayd wallaahu yacsimuka min annaas wallaahu alle yacsimuka adiga nebi moxameda waa ku ilaalinayaa min annaasi dadku kaa ilaalinaya wax ku taabo kara iyo wax kuu soo dhowaan kara iyo wax ku dhakri kara male iyo gaadmo lagugu dili karo ma jirto waana la isku dayay dhowr mar waa fashilmeen aayaddan intiisa soo degi nebigu waa la waardiyi jiray maadaama cadowga muslimka uu badnaay yahuud iyo maaragtay munaafiqiin iyo mushrikiintii laftigoodii carabta iyo wax iska socdaba oo la adeegsadaba dhammaantood marka waa nebiga waxay u ahaayeen inay maaragtay fiirsadaan oo ay ilbaad ka helaan si ay u dilaan aayaddan laakiin markay soo degta nebigu wuxuu yihi bas iska dhaaf waardiye aniga xag rabbiyaa layga waardiyey wallaahu yacsimuka min annaasi waa ballanqaad ilaahiyo wax u dhowaa kara male iyo wax la hadli kara iyo wax taabo kara awalna sidaas oo kaley ahayd oo nebiga waxaa lagu ilaaliyey adeerkiis abu aalib oo markaas aan diin ahaan u rumayn nebiga laakiin dabeecadii basharka iyo bini aadamnimadii yacni xubbi waxaa la geliyey jacayl oo aan ahayn mid diiniya mid fitri ah oo uu ugu hilba dagaalamayo waa loo dhowaan waayey maadaama uu ahay nin odaya oo qurayshtu ay ka heebaysato intuu maka nebigu joogay ama adeerkiis uu noolaay qof yacni sidaa ilxun ku fiiriye ma jiro nin walba ninkaana laga baqayay oo ahay maaragtay buur maaragtay nebigu ku hagoogatay ilaha ku ilaalinaya laakiin ku maarata waa kii diiday aakhirkiisii markii uu yihi maaragtay qul laa ilaaha ila allah kelimad ilaahay agtiisa aan xujo u hela waa diiday abujahl dhinac ka fadhiyey oo dhahayay maaragtay madiintii oo cabdilmuطalibaa ka tegaysaa wuxuu ku dhintay huwa calىa milati cabdilmuطalib wa abaa an yaquula laa ilaha ila اllah waxaa kusoo degtay inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ilaaha marka hanuunka qalbiga dadka u geliya qof kale ma heli karo laakiin nebigu waa u dadaalay wallaahu yacsimuka min annaasi allah dadka kaa ilaalinaya oo ku waardiyeynaya ku ilaalinaya wax kuu soo dhowaa kara ma leh cismo ayuu haystaa kabacdi marka nebiga waa laga qaaday waardiyihii iyo ilaalintii la ilaalinayay iska dhaafi ina allaha laa yahdi alla ma hanuuniyo alqowma alkaafiriin qoom gaalo ah ilaahay ma hanuuninayo oo qofku ilaahay ugu talagalay inuu hanuuniyo waa inuu noqdaa qof yacni diyaar u ah oo ilaahay ugu talagalay inuu hanuuniyo laakiin qof kaafir oo fii cilmi illaahi gaal ku ahay ma la hanuuninayo ina allaha laa yahdi alla ma hanuuniyo alqowma alkaafiriin qoom maarata gaalo ah nabigu waxa lagu laysa calayka hudaahu walaakin allaha yahdi man yashaa adugu inaa hanuunisid malihi taas fainamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab
adu gaarsiin baa leedahay balliq maa unzila ilayka min rabbika laakiin hanuunka iyo baadida ilaahay baa maaratay cidduu doono baadiyeynaya cidduu doonana hanuuninaya qul yaa ahla اlkitaabi lastum calىa shayءi xataa tuqiimuu الtawraata wاlinjiila wamaa unzila ilaykum min rabbikum qul waxaa tira nebi maxamedow yaa ahla اlkitaab ahlu kitaabow lastum ma ihidiin calىa shayin waxbana wax diina iyo aasaas aada leedihiin male xataa tuqiimuu tawraata ilaa kitaabkiinii tawraada ahay aada toosisaan oo ku dhaqantaan walinjiila qoladii injiilana ay injiishii toosiso wamaa unzila ilaykum wixii ladiin soo dejiyey min rabbikum xagga rabbi ladinkaga soo dejiyey oo nebi moxamed inaad rumaysaan wax alla wixii kutub aada haysateen ama ha horeeyeen ama ha dambeeyeen waa inaad rumaysaan nebi moxamedna aad rumaysaan haddii intaa laydinka waayo wax diinaa haysatiin male xataa tawraad ma haysatiin xataa injiil ma haysatiin wax aad tihiin male lastum calaa shay yaa ahla alkitaab kuwa kitaabka la siiyo lastum calىa shayin min addiin wax diina ma haysatiin ilaa xataa tuqiimuu ilaa aad ka toosisaan oo uga dhaqantaan altawraata waاlinjiila tawraad iyo injiil ilaa aad ku dhaqantaan oo faraysa inaad nebi moxamed raacdiin xataa tawraad injiil labadaba nebi moxamed tilmaamtiisaa ku taalla inuu soo bixi doono waktiga dambe waa inaad rumaysaan asaga shareecadiisii qaadataan oo ku dayataan wamaana aada rumaysaan xataa tuqiimuu tawraata waاlinjiila wamaa unzila ilaykum wixii laydiin soo dejiyey min rabbikum xagga rabbi laydinkaga soo dejiyey qur-aankaana ilaa intaas aada ku dhaqantaan wax diina ma haysatiin finisha calaa shay waxba ma haysatiin walayaziidana kaiira walayaziidana kaiira minhum maa unzila ilayka min rabbika duqyaana wa kufran waa inta dayan soo mara oo ziyaadee nuqsaan aan lahayn walayaziidana wuxuu u ziyaadinayaa kaiira in badan minhum ahlukitaabka ka mida maa unzila ilayka min rabbik wixii xagga rabbi looga soo dejiyey qur-aankan ayaa wuxuu u ziyaadinayaa duqyaanan wa kufran qooq iyo kibir sanka taagaya ma anagu carab maan rumaynaynaa ma nebigaasaan rumaynaynaa ma diinkaasaan rumaynaynaa annagu waxaan nahaba naxnu abnaa ullahi wa axibbaa'u shacbullahi almukhtaar baan nahay sanka taagaya kibir buu kordhinay waa badraan duqyaanka waa xuduudda wixii dhaafay inaa lamaa daqa lmaau xamalnaakum fi ljaariya sooma biyo waxaa la yaqeenay yani si caadiya u naqeeno iska socdo meelahan daadka iyo markii fatahaad yimaadiin laakiin xaggii korena waa laga soo daayey dhulkii hoosena wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudira ilaahay si ugu talagalay qadar baa la geeyey qadarka waxaa ku fahmi kartiin doontii nebi nuux liida samee oo isagoo meel cidlaa jooga la yidhi samee doontii ku socdaa doon waxay ku socotaa ducaadka male ilaahay wuxuu ogaay dhulka insaan laga dhigi doono asaga dhan biyo wiilkiisa ki yidhi kaale na soo raac qaala sa-aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaai buur baan wuxuu leeya anu fuulay biyaha iga ilaalinaya buuru dhalada ka fuulay meesha kale biyahan buura ugu tageen qaala sa-aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaai qaala laa caasima alyawma min amri illaahi ilaa man raxim maanta ilaali ma jirto qof ilahay unaxariista moogi ee kaale doonta wax ka soo fuul oo ilaahay rumee waxaala baynahum almawj inta hadalkaas ka dhacayaba mawjad aa meesha ugu tagta oo kala dhex gasha nebi nuux iyo wiilkiis markuu yidhi
markuu yihi wiilkaygii ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaqu wacda inahu laysa min ahlika inahu camalu gayru saalix wiilkaaga iyo adigu haddaa diinka isku raaci weysiin waxaa lagu leeyahay wiilkaagii ma ahan haddii ay wanaagsanaadaana ilaahay wuxuu u ballan qaaday in dadka israacinayo wاladiina aamanuu waاtabacathum duriyathm biiimaani alxaqna bihim duriyatahum waa la raacsiinaya laakiin aniga waa ku dhalay sidaan ahaa ila noqonaysa ma jirto ikhtiyaarkaas marihid ilaahay baa wata ambiyadii aabbayaalkoodii ama caruurtoodii ama haweenkoodii ayaa gaalo noqday oo aan raacin nebi nuux hadda wiilkiisa waa ujeedaa nabiy llaahi ibraahim aabihiis aazar gaalo ahaa waa kii ugu yaray xaqa diiday waa kada nabiy llaahi luud iyo imra'atu maaragtay fircawn waa kala bedelnaayeen nebi isagoo ah nabiy llaahi luud haweentiisii faajirad ahaad oo ahlunaar noqotay oo ilaahay maal uu nooga dhigay darab allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luud kuwa kalena darab allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn oo ilaahnimo sheegtay baa xaaskiisa mu'minad ahaad oo leedahay maaragtay ilaah iga badbaadi najini walaa yaziidana kaiira minhum ma unzila ilayka min rabbika duqyaana wa kufran tafsiirkeedu waa soo maray falaa ta'sa ha u murugoon nebi maxamedow cala alqowmi alkaafiriin qoom gaalo ah oo ilaahay rusushiisa iyo kutubtiisa beeniyey waxba ha u murugoon falaa ta'sa asaga waa murugada waxba ha u murugoon walbahaar iyo walwal ha isgelin cala alqowmi alkaafiriin qoom kaafiriina ha u walwelin ina aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah waa dadkii muslimka ahay waaladiina haaduu iyo kuwa yahuudiyoobay oo yahuud sheegtay waa qoladii towraad dhahaysa maaragtay towraad baa haysanaa wasaabi'uun saabi'uunta horena waa usoo marnay suuratu baqara qaar waxay leeyihiin waa koox ayagu maaragtay aan ahlu kitaabna ahayn laakiin saabi'iina la yidhaahdo dadkii markaas asnaamta caabudayay bay ka dhex baxeen markaasay maaragtay rusushii hore iska rumeeyeen oo xoogaa maaragtay ayagu dad rusushiina is soo gaarinay ahaayeen laakiin diinka hore iskaga dhaqmayeen marka cidday doona ha noqdeen saabi waa niman fiican oo saabi waxaa la dhihi jiray qofkii diinkiisii hore ama dhaqankiisii ka tegey nebigiisoo saabi ma dhihi jirin quraysh saabi bay dhihi jireen marka ayaga dhaqankoodii ay haysteen oo waanigaha ama kitaabka aysan haysane mushriknimada ahayd iyay ka dhex baxeen markaasay diinkii hore ay wax ka qabsadeen saabi'iin waa marka ayaga dhuuxooday ka baxeen wasaabi'uun iyo kuwaas saabi'iinta ah wanasaara iyo kuwa nasaarada ah oo hadda kiristanka sheegtay nabiy llaahi ciise inay raacsan yihiin intoodaasba man aamana biاllaahi walyowmi اlaakhir qofkii ilaahay iyo aakhiro rumeeya magacu doona ha yeesho ama yuhuud ha sheegto ama saabi ha sheegto ama nasaaro ha sheegto ama muslin ha sheegto man aamana biاllahi walyowmi اlaakhiri tilmaantaasu qur-aanku fiirinaya ilaahay iyo aakhiro qofkii rumeeya wa camila saalixan intaa kaliya laguma dayn camal wanaagsanna sameeya falaa khawfun calayhim dadkaas mustaqbalka ma cabsanayaan khawf waxa ka horeeya kama baqayaan oo mustaqbalkooda ah walaa hum yaxzanuuna mana ka murugoonayaan wixii ay ka soo tageen xusnigu wuxuu yimaadaa wixii aa ka tagtay oo gadaal kusoo dhaaftay baa laga murugooda markaa safartid ilmahaagu waxaasay noqon doonaan iyo reerkaagu nabad ma ugu imaan doonta ma dagaal baa lagu soo qaadi doonaa xusniga halkaasu ka yimaada iyo tiraayadu khawfkuna oo aday kaa hore dariiqaas horta ma isbaara taalla amaan ma yahay baa leedahay
oo wax ka horeeya marka intaasoo isku soo qabtay maqsuudku wuxuu yahay firqo kasta ama koox kasta oo ilaahay iyo aakhiro rumaysa aakhiradu macnaha maxay tahay waa qiyaamadii iyo macaadkii in dadka la soo celinayo la abaal marinayo jazaa ay jirto camal wanaagsan la sameeyey qofka noocaasa oo camalkaas wanaagsan oo shareecadii waafaqsan cabsi iyo murug korkiisa maaha in aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah wاladiina haaduu iyo kuwa maaragtay yuhuudda ah wالsaabi'uuna iyo kuwa maaragtay ka baxay wixii hore ay ku jireen oo ishraagii kuwii ku jira ka dhex baxay oo rumeeyey islaamkii iyo markaa diinkii ay haysteen carabtuna waa lahaayeen dad haba yaraadeena oo ka dhex baxay cibaadada maarata asnaamta oo aan baktiga cunin oo ayagu suluugoodii dhaqankooda u fiicnaay waa jireen ahlu kitaabna aan raacin laakiin nabiy llaahi ibraahim iyo diimihiisi iyo wixii haray bay wax ka qaateen qoladaas wanasaara iyo kuwa maaragtay nasaarada ah oo kiristanka ah man aamana biاllahi walyowmi اlaakhiri intooda isku soo duuduub qofkii ilaahay aakhiro rumeeya labadaas marka kaliya ma ahan iimaan laakiin waa labadii ugu muhiimsaneed ilaahay iyo aakhiro rumayntooda laakiin waxaa ku jira kutubtii ilaahay rusushii qadaa walqadar malaa'igtii waxaasna waa ku jiraan iimaankii lixda man aamana biاllahi walyowmi اlaakhiri wacamila saalixan camal wanaagsanna iimaankii ku daray camalku saalix wuxuu noqonaya markuu shareecada waafaqo oo ilaahay dartiis loo sameeyo falaa khawfun calayhim cabsi dushooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuuna kuwa murugoonayana ma ahan kuwaas laqad akhadnaa miihaaqa bani israa'iila wa arsalnaa ilayhim rusula ilaahay wuxuu noo sheegayaa in reer banu israa'iil ballamo adag uu ku qabtay wax badanna waa soo marnay ballamadaas oo tafsiirkoodii lain aqamtum الsalaata waataytum الzakaata waamantum birusuli waczartumuuhum waaqradtum اllaha qardan xasana la ukafiranna ayagoo bayaansan halkaasaan kusoo baxnay laakiin hadda miihaaqii baa la sheegay qur-aanku markaasaa iska milaya aayadna waxbaa la sheegaya aayad kalena wax kala lagu sheegaya marka waa in la isku raadiyaa la isku maaragtay qabtaa laqad xaqiiqe akhadnaa waan qabanay miihaaqa bani israa'iil reer banu israa'iil waa awlaadu yacquub nabiy llaahi yacquub wixii ka farcamay baa waxaa la yidhaahdaa banu israa'iil isra yani waa cabdi cabdullaahi ka dhiganta israa'iil nebi yacquuba marka banu israa'iil ay ka farcameen laqad akhadnaa waan qabanay miihaaqa bani israa'iil reer banu israa'iil ballankoodii adkaay miihaaq waxaan kusoo sheegnay ballan dhaar iyo maaragtay markhaati lagu adkeeyey wax sahlan maaha wa arsalnaa ilayhim waxaan u soo dirnay reer banu israa'iil rusulna waa usoo dirnay oo ay maqlaan oo adeecaan marka rusushii loo soo diray iyo ballankii lagu qabtay intaba waa jebiyey waana soo marnay tafsiirkooda kulamaa jaaءahum rasuul mar kasta u yimaado reer banu israa'iil bimaa shay ula yimaado laa tahwaa anfusuhum naftooda aysan jeclayn oo rabin hawadooda ma rabaan fariiqan kadabuu qayb ka mida rusushaas waa beeniyeen wa fariiqan yaqtuluun qaybna waa dileen hore u dileen nabiy llaahi zakariya yaxye iyo waa dileen iyo dadkii ducaaddaa wax u sheegayay kulamaa jaaءahum rasuul markasta ula yimaado bimaa laa tahwaa anfusuhum wax naftoodu aysan rabin oo sharcigii uu ula yimid iyo hawadooda isma waafaqaya annaga waan haystay sooma xeer jajabaa noo yaalla meel dhaqan xeer jajab waa hawadii annagaa jecel reebel waxaasaan kula dhaqanno reebel xeerkaas aan dhiganno
reebel waxaas maaragtay aan kula mucaamalaynayna ayagoo diinka u yaalla diinku dakarka waa sheegay ilga isha dhegta gacanta kulli waa sheegay waxa ay leeyihiin haddana waa laga xeertamay oo soo marna waxa la yidhi maaragtay xeersato baa hartay xukunsato waa dhigteen sharcigaa lagu xukumo haddii la yidhaahdo xukunsato waa tagtay waxaan isku reebaa malahay leeyihiin marka kuwaas waa dhinteen laakiin wixii wax xeertay ayaa maaragtay haray meesha kadib waa been fasaadka dhan waxuu ka yimid waa xeerka lanna xeerku waa bimaa laa tahwa anfusuhum annaga hawadiia rabnaa iyo nafteenu waxay rabto laakiin ilaahay wuxuu noola yimid oo sharci nooga dhigay aan khilaafnay halkaasaan ka baaba'na marka sarta meeshaas ka qurintay kulamaa jaaءahum rasuulu bima laa tahwa anfusuhum rasuul markuu ula yimaado wixii aysan naftoodu rabin ilama iswaafaqayaan sharciga ilaahay iyo hawadaada rasuulku wuxuu wataa marka sharci hawadooda marka waa khilaaftay ayadaa lagu leeya ambiyada nabigaa soo marnay walaa tattabic ilhawaa fayudilaka can sabiili اllah walaa tattabic ahwaa'ahum cama jaaءaka min alxaqi waan soo marnay markii marka sidaas ay ula yimaadeen waa qoonsadeen rusushii fariiqan kadabuu qayb waa beeniyeen wa fariiqan yaqtuluuna qaybna waa dileen qataluu meesha laga dhigi lahaa yaqtuluuna hadda ayaga lagu faarxumayna ficil mudaarica laga dhigay arrin cusubaa looga dhigay laakiin horay u dileen laakiin hadda waxa la yidhi yaqtuluuna waa dilaysaan wax hadda laga dhigay jooga kuwaana lagu akrinaya yuhuudda ah kuwii hore aabbayaalkood waxay sameeyeen iyo awowayaalkood waxasibu waxay u maleeyeen an laa takuuna fitnatun balaayo iyo musiibo iyo imtixaan inuusan ahaanayn waxaas ay sameeyeen oo dilidda ambiyada ay dileen iyo maaragtay beeninta ay beeniyeen waxba inaysan ka ratimayn bay u maleeyeen waxasibu waxay u maleeyeen an laa takuuna fitnatun waxaas ay sameeyeenoo dilka iyo beeninta inaan fitno ka imaanayn balaayo iyo imtixaanid facamuu markaasay indhabeeleen oo xaqii inay raacaan bay ka indhabeeleen wa sammuu waa dhagabeeleen summun bukmun cumyun camuu waa indhala-aantii cama summunna waa summuu wa sammuu uma taaba allaahu calayhim ilaahay baa maaragta ka toobad aqbalay oo towbadiia loo furay bal inay hanuunaan marka wax ay xaq maqlayaan ama ay ku hanuunayaan ma jirto uma camuu wa sammuu haddana waa indhabeeleen oo waa dhagabeeleen kaiirun minhum in badanoo ka mida wallaahu alle basiirun waa alla u jeedo arkaya bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan ilaahay waa daalacanayaa waana ka abaalmarinayaa wallahu aclam